madaxweyne hore ayaynu ku tabaynaa laascaanood. waxaan rabaa inaan si toos ula hadla reer laascaanood. reer laascaanood oo madaxweyne hore ayaan idigu tabaynaa. madaxweynaheena barakaysano markuu idin soo gaaro master xasan sheekh maxamuud, markuu idin soo gaaro waa inaad saa isugu hareeraysaan sida shinnidu boqorka u ilaaliso, waa inaad u ilaalisaan. mid hore aan idigu tabaynaa, waddadii kii hore aad mariseen kan haynaga marina. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سؤال هذا صاحب يال من البؤد جوكتان هل كان وحورش تيفي صاحب يال سيدا أن أكسون هي وحاكا سعطة ماشي أهد لاسعانود قبان قابا وين ليسو ديارين يو سودا وينتا مدحوين حسن الشيخ محمود يوفدي وهقاميني iyadoo ay ka soo horeeyeen sida aynu wada ognahay wufuud fara badan sida siyaasiyiin, cuqaal, waxgarad dhan walba ka soo jeeda Soomaaliya qaybaheeda kala duwan. saaxiibayaal, laba su'aalood ayaa meesha taalla. madaxweyne xasan sheekh maxamuud waynu ognahay waddanka iyo duruufaha ka jira. sida xaqiiqada ah halkaas waa furin colaadeed. dhowrkii sano ee lasoo dhaafay furin colaadeed ayay ahayd. waa meel lagu lagdamayay Soomaali ayay ahayd oo horta cadow ka baxsano ma uusan imaan, laakiin Soomaalidii isku haysateen weli sidii ayay isu hor fadhisaa, xaalku ma uu degano. madaxweyne xasan sheekh maxamuud wuxuu noqonayaa dhowr iyo konton sano kadib madaxweynihii booqda ayuu noqon doonaa. haddaba marka fiidiyowga halkaa idiinka muuqanaya waa dhowr iyo konton sano ka hor sidaa ayuu u marayay. waa madaxweyne maxamed siyaad bar. dadweynaha ayuu daaqada kale haddii gacanta daaqada ka salaamay. madaxweyne xasan sheekh maxamuud qumbullad in laga dejiyo qumbullad geli doona oo ka qodbay doona mase sida ayuu shacabku u dhaxmari doona. waa su'aal meesha taagan. su'aasha labaad waxa ay tahay sida aynu ognahay xasan sheekh maxamuud maamul goboleedka uu raaliga ka yahay ama isaga taabacsan markay xaflado ka dhacayso amaba madaxweynuhu uu booqanayo, sidaynu ognahay aana lagu aqoon jiray in wufuudu ka hormarto saraakiilo, ka hormarto xildhibaano, mas-uuliyiin, odayaal, cuqaal, waxgarad, culimaadin dhammaan in laga hormaro la soo dhaweeyo waa lagu yaqiinay, waana dhaqanka Soomaaliyeed, waana gobonimo. laakiin su'aasha meesha taal farbaa inoo taagan. dhalinyarada TikTok isticmaasho aan ciidan dowladeed ahayn, shaqaale dowladeed aan ahayn, aanan ahayn saraakiil, xildhibaano aanan ahayn, odayaal ama cuqaal ama waxgarad aan ahayn, waxa diyaaradda loogu kireeyo oo khasnada looga saaro oo loo qarash gareeyo, khasnada masaakiintaas canshuurteeda lagu rido ayaa laga qarash gareeyaa. sababtaasu maxay tahay? dhalinyarada TikTok isticmaasho